Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay sanadkan 2026 si rasmi ah ugu guuleysatay inay ka mid noqoto wakiilada loo doortay 15 xubnood ee uu ka kooban yahay Golaha Amniga iyo Nabadgelyada Midowga Afrika, taasoo ka dhigan inay tahay markii ugu horeysay taariikhda ee ay Soomaaliya ka mid noqoto golahan oo ah midka lagu jaangooyo go'aanada la xiriira arrimaha nabadgelyada qaaradda Afrika, xallinta khilaafaadka, ka hortagga colaadaha iyo xakamaynta meelaha ay xasaraduhu ka aloosan yihiin ee qaaradda. Hanashada kursigan guddiga amniga iyo nabadgelyada midowga Afrika ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ahayd guul weyn oo gaamurtay una soo hooyatay qaranka, waxaana dadaal badan oo la taaban karo gelisay hawshaas iyo sidii aynu kursigan u heli lahayn wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Ethiopia. Waxaana muuqata oo aan qarsoodi ahayn in ay safaaraddu door weyn oo lixaad leh ka ciyaartay oo ay iyadu hormuud u ahayd guushan horseeday inay Soomaaliya si buuxda uga mid noqoto guddiga amniga iyo nabadgelyada midowga Afrika. Waxaa xusid iyo in hoosta laga xariiqo mudan in bahda wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ay iyaguna door muuqda ku lahaayeen tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliya u qaaday dhinaca hirgelinta howlaha hortabinta u leh qaranka, oo ay ka mid tahay hanashada iyo ka mid noqoshada Soomaaliya ee Golaha Amniga iyo Nabadgelyada Midowga Afrika. Waxaana aan qarsoodi ahayn in wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdisalaam Cabdi Cali, wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Mudane Cali Maxamed Cumar Cali Balcad iyo xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamza Aadan Xaadow ay qayb ka ahaayeen qorshayaasha horseeday in ay Soomaaliya ku biirto Golaha Amniga iyo Nabadgelyada Midowga Afrika. Waxaa kale oo marqaatimo doonta ah in wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Cali Maxamed Cumar Cali Balcad uu isagu kaalin mug weyn oo gaamurtay ku lahaa dhammaan marxaladihii ay soo martay arrintani, isagoo safarro kala duwan oo caalamka ah u galay sidii ay Soomaaliya ugu biiri lahayd 15 xubnood ee Golaha Amniga iyo Nabadgelyada Midowga Afrika. Sidoo kale, muddo yar ka hor intii aysan doorashada guddigani ka dhicin Addis Ababa, safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Ethiopia Ambassador Cabdullaahi Maxamed Warfaa ayaa wadaxaajoodyo miro dhalay la yeeshay safiiradii kala metelayay waddamadii tartanku ina dhex maray oo kala ahaa Kenya, Rwanda, Comoros iyo Djibouti. Wuxuuna safiirku ka shaqeeyay in dalalkaas lagu qanciyo in ay taageeraan musharaxnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya ee ka mid noqoshada 15 xubnood ee guddiga amniga iyo nabadgelyada midowga Afrika, taasoo sababtay in dalalka qaarkood oo ay ka mid tahay Jamhuuriyadda Djibouti ay taageero buuxda u muujiso Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaa kale oo xusid mudan iyada oo wadarta codadkii la dhiibtay oo ahaa 47 cod ay Soomaaliya si buuxda u heshay 46 cod, taasoo la mid ah in ay taariikhda markii ugu horeysay tahay inay Soomaaliya noqotay dalkii ugu horeeyay oo Afrikaan ah oo si buuxa u hantay codadka inta badan dalalka wax dooranayay. Waana awood diblomaasiyadeed oo ay muujisay dowladda federaalka Soomaaliya. Arrintan ayaa sidoo kale ka dhigan kalsoonida ay dhammaan dalalka midowga Afrika ku qabaan dowladnimada Soomaaliya, waxaana laga rajaynayaa Soomaaliya inay guddiga amniga iyo nabadgelyada midowga Afrika ku biirin doonto khibraddeeda ay u leedahay arrimaha amniga iyo xasilinta xasaradaha soo laalaabta ee Afrika. Docda kale, safiirka safaaradda Soomaaliya ee Addis Ababa Ambassador Cabdullaahi Maxamed Warfaa iyo diblomaasiyiinta kale ee safaaraddu waxay qayb weyn ka ahaayeen dadaalkii wadajirka ahaa ee ay bixisay xukuumadda iyo dowladda danqaran ee ay hormuudka ka yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, kaas oo ay dalalka midowga Afrika ugu gudbiyeen qaraarkii ka dhanka ahaa falalka guracan ee waxba kama jiraanka ah ee ay Israa'iil kula kacday midnimada dadka iyo dhulka Soomaaliya. Waxaana soo degdegtay in dhammaan madaxda sare ee dalalka Afrika oo aan kala harin ay aqbaleen qaraarkaas, isla markaana ay cambaarayn dusha uga rideen Israa'iil, iyagoo ugu baaqay inay si dhaqso ah uga laabato ficiladii guracnaa ee ay ku dhaqaaqday. Ugu dambayn,
madaxda sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa ku bogaadiyey madaxda sare ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya iyo diblomaasiyiinta safaaradda soomaaliya ee addis ababa dadaalada iyo guulaha arrimaha dibadda ee miro dhalay oo ay hormuudka ka ahaayeen. waxaa sidoo kale mahadnaq gooni ah loo celiyey dhammaan howlwadeennada safaaradda soomaaliya ee addis ababa oo uu hormuudka u yahay ambasador cabdulaahi maxamed warfaa oo juhdi aad u weyn muujiyey muddadii uu safaaradda joogay. zakariya khaliif faarax, warbaahinta qaranka.